Sanadkan 2020 oo noqonaya sanadka cabista sunta maadaama in ka badan 10 dhalinyaro rag iyo dumar isugu jira ay jacayl dartii go'aansadeen inay isdilaan. Warbixintan waxaan ku qaadaa dhigi doonaa xaggee nooga timid in qofka naftiisa dilo, diintu maxay ka qabtaa qofka naftiisa gooya, sidee looga hortagi karaa dhaqankan. Waan jeclaan lahayn in bogga Nasteex Mire Maxamuud laag saarto una sii shargareyso asxaabtaada si aan ula midowno. Kiisaska ugu badan ee dhalinyarada isku dayay inay naftooda gooyaan waxaa laga soo warinayaa gobolka Galgaduud, gaar ahaan magaalooyinka Gurceel iyo Dhuusamareeb, halka dhacdooyin kale laga soo sheegayo Muqdisho iyo Baardheere. Dhalinyaradan ayaa waxa ay kor u dhaafayeen tobaneeyo. 10 maalin gudahood waxaa magaalada Gurceel sun ku cabay 4 gabdhood, kuwa oo nasiib wanaag la badbaadiyey kadib markii daryeel caafimaad loo sameeyey. Waxayna ka wada sugnaayeen in jacayl dartii ay u cabeen kadib markii uu ku xumaaday xiriir jacayl oo kala dhexeeyay dhalinyaro ay wada hasaawayeen. Nimco Cusmaan Axmed waxa ay ka mid ahayd 4 gabdhood ee sunta cabay, waxaana gabdhaha kale ay kaga duwan tahay waxaa lagu daray nin aysan rabin. Muddo ay wada noolaayeen kadib waxa ay ka dalbatay inuu furo. Markii ay weysay furiin, waxa ay qaadatay go'aan naf iyo shaydaan ku riixay oo ahaa inay isdisho. Ha yeeshee qadarta Alle iyo gargaar caafimaad oo loo sameeyey waa la badbaadiyey. Farxiyo oo Cali, gabar 16 jir ah, iyo gabar kale ayaa ka mid ahaa dumarka sunta ku cabay Gurceel, inkastoo aan wax dhimasho ah laga soo warin halkaa. Dadka isticmaala baraha bulshada ayaa isla sheekadan dumarka sunta cabay hadal hayay, markaa qaar ka mid ah dadku ay si jees ah uga falcelinayeen arrintan, halka kuwo kale ay baraha bulshada ku qorayeen inaysan ahayn in dumarku kaliya sun cabaan, balse loo baahan yahay in la helo wiilal iyana sunta caba. Wiilashu aad moodo in markaan ay ka jawaabayeen hadallada baraha bulshada la isla dhex marayo, ayaa waxaa mar qura soo baxay hadal haynta 3 wiil oo sun u cabay jacayl dartii. Ibraahim Cilmi oo ku nool magaalada Gurceel ayaa sun u cabay gabar uu jeclaa oo lagu magacaabo Kafeeyo. Waxa uuna sheegay inay ku nacday shaqadiisa, taa oo markii hore uu ku ogeyd. Markii gargaar loo sameeyey uu roonaaday, waxa uu Ibraahim weli ku adkaysanayaa inuu isdili doono haddii uu Kafeeyo waayo, nolosha aysan waxba u taraynin iyada la'aanteed. Cabduuli oo ku nool Baardheere ayaa sun u cabay Nimco uu jeclaa, taa oo isaga fogaatay noloshiisa. Cabduuli waxa uu kaga duwanaa dhalinyarada aan kor ku soo xusnay. Inta uu qastay suntii ayuu sawir ka qaaday, markaa ayuu ku faafiyey status-kiisa WhatsApp, markaa oo asxaabtiisa ugu sheegayay in maanta ay tahay maalintiisii ugu dambeysay dunida. Maxamed Cariif Cali ayaa sun u cabay Farxiyo Axmed oo uu qaaday jacayl xad dhaaf ah kadib markii ay ku wargelisay inaysan rabin. Wiilkan ayaa hadda xaaladiisa caafimaad lagula tacaalaya isbitaalka Sile ee magaalada Muqdisho. Sakariye Yare ayaa jacayl dartii isaga soo tuuray mid ka mid ah anteenooyinka ugu dhaadheer degmada Galdogob ee gobolka Mudug. Dhacdadan ayaa timid kadib markii Sacdiyo Xasan Ismaaciil ay uga baxday ballan ay lahaayeen, taa oo sheegtay inaysan wax niyada u haynin. Sakariye ayaa xaaladiisa caafimaad lagula tacaalayaa isbitaalada deegaanadaas. Intaa kuma eka wiilasha sunta u cabay, sida ay sheegeen jacayl ay u qabeen gabdho ay wada hasaawayeen. Weli wax dhimasho ah lagama soo sheegin dhammaan dhalinyarada sunta ku cabay Soomaaliya. Haddaba xaggee nooga timid in qofku dilo naftiisa? Tiknoolajiyadda adduunka oo sii horumaraysa darteed waxaa guryaheena yaalla tiifiyo waaweyn, kuwa oo inta badan dhalinyaradu ka fiirsadaan aflaan iyo musalsalaad, iyadoo filimada ay qayb ka noqdeen. Qof jacayl dartii sun cabaya ama qof ay noloshu ku adkaatay, kaa oo jilaya door ah in naftu uu isdhaafiyo, waana halkaa meesha ay nagaga soo gashay in qofku naftiisa gooyo. Haddaba maxay diinta islaamku ka qabtaa in qofka nafsadiisa gooyo? Culummada diinta islaamka oo aan wax ka weydiiyey qofku asagoo caafimaad qaba isdilo ayaa waxa ay sheegeen in arrintaasi tahay dembi weyn iyo iimaan la'aan. Qof qadarta Alle ku qanacsanna uusan naftiisa gooynaynin. Waxayna sheegeen in arrintan qofku ku mutaysan karo cadaab Alle. Sidee looga hortagi karaa ficilkan aan wanaagsanayn ee isdilka dhalinyarada? Sida ugu fudud ee dhalinyarada looga hor istaagi karo inay gacantooda isku dilaan waxa ay tahay in la baro diinta islaamka si ay u ogaadaan ciqaabta ka dambeysa maalinta qiyaamo.
haddii ay gacantooda isku dilaan, iyo sidoo kale in loo sameeyo wacyigelin ballaaran taa oo lagu dhisayo maskaxda iyo garaadka dhallinyaradan.